ومصطفى عبد الله الشيخ الله يخان مصطفى خان واحد كسر دوينيا Somali Youth TV أما TV قلنا الصوماليات هذا يجر waxaan kusoo qaadanaa barnaamijyo kala duwan inta badan waxa xoog saarnaa arimaha IT-ga iyo arimaha bulshada laakiin maanta waxa ka hadlaynaa arimaha khuseeya la xiriira IT-ga khaasatan nadaafadda sida loo nadiifiyo dalada ama shaashada kombiyuutarka marka studio haadina marka anaga waxaan isticmaali doonaa alaabtan ku jirto baakada magaceeda waxaad iisoo dhigi doonaa description-ka ama mail tag dhow filinka si aad u aragtaan magaca waxaad samayn kartaa markaas magac markaad qortaan waxaad ku qori kartaan google waa raadi kartaan images sawir ahaan ayaad u raadi kartaan si aad u aragtaan waxyaalaha markaas ku jira halkan ee ka kooban isleeyihiin si aad kugu sahlanaato in aad soo jirto ama aad raadsato meesha aad joogtaa ka raadsato si aad si oo waxaa uga samaysato marka baakada ayaan furaynaa waxaa ku jirto alaabtan waa dhowr shay oo kala duwan labadani waa maro laba maro yaryar baa ku jirto oo ah soft aad u fiican waa kala nooc sidoo kale meesha waxaa ku jirto liquid wax aad moodaysid inay biyo yihiin ayaa ku jirto waa tan waa wax lagu masixi lahaa waxaa kaloo ku jiraan labadan okay waxaan samayn karnaa in keyboardga dhexdiisa aan ku masaxno meelaha banaan si wasaqda ay ugu jirto ee banaanka ugu soo baxdo isla markaas waxaan samayn karnaa haddaan doono dhalada haddii wax wasaq ku leeyihiin intaa gacanta ku fiiqi lahayd ama ay dhalada garaaf ama dhibaato soo gaari lahayd ama dhibaato soo gaari lahayd in waxaas markaa wax qoyin aan ku shubno baashaan qoyin markaan ku shubno in baashaan ku xoqno si waxay ugu soo foqaan kadib aan u masaxno marka waxaa laga yaabaa baasha noocaas soo iibsan doontid inay ka duwan yihiin kuwan oo aad heshid bahal noocan ka duwan dhowr qeybiyo oo kala duwan bahalaan ay la socdaan kuwan ayna kala duwannahay marka waxaan aad u fara badan yihiin shirkado badan baa jiro kala nooc bay samaysaa marka noocay haddaa ahaato noocay doonta ha noqoto marka nooca doonta soo iibsan kartaa marka si waxaga marka baasha waxaa la magaceeda haddaa inii sheego suite of cleaning liquid crystal screen oo wax loogu talagalay dhalada inta badan waxaa ognahay dadka inay sameeyaan inuu qofka canduftiisa u isticmaalo dhalada uu ku tufo taasna ma fiicno sidoo kale marka qaar waxaa dhacdo qofka inuu biyo isticmaalo ama shay aan lagu talagalin dhalada inuu isticmaalo waxyaalaha kale aad u xiisi badan ayaa waxay tahay in aad isticmaali kartid TV-ga la daawanayo dhalada LCD sida hadday tahay oo kale haddii dhaladii weyneed ee tahay computertii hore oo ku masixi kartaa waxaa kaloo ku masixi kartaa CD nooc walba ay ahaato DVD CD nooc walba ay ahaato lagu masixi karaa wax dhibaato garaaf uma keenayso sidoo kale waxaa lagu masixi karaa scanner baasha lagu qaado sawirka dokumentiyada lagu qaaday computerka la geliyo iyo waxyaalahaas u fara badan insha allah marka soo istaagay arki doontaan waxyaalaha fiican iyo inta shay ay qaban karto ama lagu masixi karo waxa ugu hore asmeynaysa waxay tahay waa inaan computerka baktina waayo waxaan isticmaalayno waa shay liquid ah ama dareeraha socdaa marka waxaa laga yaabaa in maaso ama korontada ay kusoo jirto ama wax dhibaato ay u geysto computerka marka waxaan gelinaynaa computerka okay waxaa kadib computerka ku dumaya markuu dumo hawsha halaas kuma eka weli korontada way joogtaa dhalada waa inaad baktisaa ama waa inaad korontada oo dhan ka siibtaa computerka sida computerka abid ayuu wadaa insha allah u dhamayna marka waa u suginaa waxyar sida aragtaan computerkii wuu damay laakiin weli waxaa shidan nalkii ama nalkii halkan ka ifaya marka waan daminaynaa waxaan ka simeynaa korontada breska waan ka siinay si wax walba ay u noqdaan safety ama wax amaan ah hadda computerka wax koronta ma laha wax walba waa okay waxaan bilaabaynaa nadaafadii ama sidii loo tirtiri lahaa waxaad soo qabataa shayga la socda markaad soo iibsatid soo iibsad baasha lagu masaxo computerka ama dhalada baalka ku jira marada soo qabso waxaa samayn karnaa laba mid inaan halkan
ku biifino aan ku tirno dhalada ama waxaan kala samayn karnaa in dhalada naftirkeeda aan ku sameyno aan ku buufino kadib aan ku masaxno laakiin waxa ugu fiican ama afdal dariiqa ugu wanaagsan inaan koodi dhalada ku buufino okay inta doonto ayaa ku buufin kartaa ama geeska ama dhexda ka bilaabo ama iyadoo dhan masax marka waxaan soo qabanaynaa baashan waxaan u masaxaynaa si tartiib ah sidaas oo kale sida doonto oo haddii dhaladaada iyo wasaq badan leedahay waxaa laga yaabaa si tartiib inaan ku masaxnayn ama ay ku tirtirmeeyeen waxaa isku daydaa inaad xoog u masaxdo ama ku celceliso waxay ka bacdi hawada ayaa marayso miiska angagaysa nadiif ayay noqonaysaa wasaqdii dhan way ka tegaysaa hawa ayaa marayso nadiif ayay noqonaysaa keligeed ayaa isqalajinayso xataa uma baahno in lagu furo marwaxad ama in la siiyo hawo si automatic ah ayay nadiif u noqonaysaa idinka ayaa arka nadaafadeeda haddii ay ku dhegan yihiin wax aada fuji weyso gacantaada ha isticmaalin markaad ku buufiso baasha meesha ku jiro ee dareeraha ah waxaad isticmaashaan baashan si tartiib ah ay ugu fuqdo waxaa kaloo la socotaa idin sheegay labadan waxaa loogu talagalay keyboardiga waxaa mara space waad gelinaysaa taas ayaa gelinaysaa si busta ku jirtay ama hawadii ama wasaqdii ay ugu baxdo kan wuu ka adeegaya kii hore markaad waxaa haddii wax ku dhegan yihiin asaxitana waad ku xooqi kartaa wax dhibaato ah ma lahan haddii xitaa keyboardiga naftirkiisa aan u isticmaalno tan isla maradii aan wax ku masixayn inaan soo qaadno ayaan ku masixi karnaa aad ayay ugu duwan tahay biyaha iyo wax kastoo isticmaasho lagama yaabo inay wasaqda fujiso ama waxaa laga yaabaa in sheegii quruxis ay disho laakiin baasha halka ku jirto aad bay u fiican tahay waxaa ku qoran waxay ilaalinaysaa nadaafada waxay dhalada ayay u tahay ilaalin ama ay u wanaagsan tahay waana mid safe ah ama ammaan ah ama laisku haleyn karo insha allah haddii aada combyuterkaada ama dhaladaada aad ku masixi jirtay candhuuf biyo iyo wixii la halmaala kulli maanta waxaad faa'iidaysatay ama aada ogaatay waddada ugu fiican ee lagu nadiifiyo combyuterka ama dhalada ama tv ha noqoto ama cd ha noqoto ama printer scanner wixii doonaan ha noqdaan insha allah waa mustafa cabdullaahi sheekh oo loo yaqaano mustafa qaan oo idinkaga tegayo sida ay nabadgeliyo waxaa idin lahaa mar labaad kusoo dhawaada Somali Youth TV ama TV-ga dhalinta Soomaaliyeed. Wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh.